بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولياشي dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta badan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Soomaaliya Voice Norway, macadka Soomaaliyeed ee Norway oo aad alaaba uga barateen barnaamijyada lagu dhisayo garaadka qofka qoyska iyo qaranka Soomaaliyeed. Waxaan maanta barnaamijkeenan gaarka idinkaga soo tabi doonaa xarunteena magaalada Muqdisho ee caasimada dalka hooye ee Soomaaliya. Waxaana maanta halkan igula sugan oo muddo kulley in badan dalka ka maqnaa ولي عبد الرحمن وسمع عبد الله زينو وكنت قينا بيرجن أوسلو ريد نورويبا محمد بارك الله يقصون دو سومالي بويس نوروي حفيز كذا مقالة مقدشة وأكمل ترايق والمدينة وانا شيء آد ما سنتهاي وفرح سنهاي يعني ما أنت وصل بوضع حفيز فرح بدن ويكون مغطى مات شرف إيو مات قيمة وين يكون مغطى marka aad baan ugu faraxsanahay mudane shir in muddo ayaa waddanka ka maqnayd marka ma noo sheegi kartaa xilliga ugu horreysay aad dalka ka baxday iyo muddadii aad ka maqnayd Soomaaliya hadda oo kugu dambeysay shayga kaftanka oo maanta idaacada ayaa doonaysaa in kaga adkaado لكن سؤال ما قد وصل خصمنا إنك جو خصمنا قد واحد استغلال الإسكالكي ما شاء الله وأختي عبدان نظرنا مولينا أنا قبل ما أنا أسيت لكن جو قصد أنت كنا وايداس وقال معنا سوى أكثر لكن واحد كنت كي وضعك وقصر نعطي دراما كنت كي وقصر نعطي مركز يود بس بقال مدشوا حيان لا ما يكون اوكي ما شاء الله يعني لبدي يكون waxaa ka soo wareegatay ugu yaraan 25 sanadood waana rubax qarni ayaan dhihi karnaa marka muxuu ahaa fikirkii aad ka haysatay ama sawirkii aad ka haysatay muddada 25 sano ee aad waddanka ka maqnayd oo maskaxdaada ku jirtay iyo markii aad timid waxa isbedelay fikirka muddada dhankeeda aad fahmaysaa fikirkii aad qaway laakiin runtii markaan imid waxay ahayd waad soo dahay waxay inaan mar hore timaaday muqdisho run ahaantii waa meel nimcada ilaahay siiyey haddii aan si rasmi ah uga fakarno ayaam leedahay waa meel shaatigii aan maalintii aan imid aan watay aan nooc ka u bedelan oo shaati qabow ama roobiga celinaya ama yani jawi عمر من مذاكين إلهي عمر وكرهناي أي مكسرة طار معان معان ملاي معان هيرب أن هيري كريم رمتي يعني هدا واحد مدة هبيك في بركة سدد سيارة اللي قالوا يعني هدا نطور أيام قوي ما نسوا كرينا روبانين لما أنت سأل مقنعد أو سوولكي مسكح هذا واحد بدل سكبتين محاب ويا بنا أو أمكان كبير ده أو أخلاق ولا تنقلش runtii waxyaabo badan ayaa dhihi karaa waxyaabaha aan xusi karo igu gaab wadna waxaa ka mid ah in aan arko muqdisho warka carruurtaan shir kaga soo qaado ayaa iyagu waxba naga dhibin annaga ayaan tuuray jirna markaas xaafad isu dhiibtaan walaadagi iska urdagaan oo kale ma yaqaan kaaga daran dadka ruma yidhahdaan ayaa maxad ka rabtaan qaar baa xitaa la yidhahda dila eegi sida inuu wax ka dhib oo kale maraan ka marayay suuqa bakaara oo suuqa ugu weyn ah magaalada muqdisho waxaan arkay eeyihii oo nabad iyo ammaan meel ku jeefa oo dadkii dhex jiifo oo la tagjiyaan oo la dhaqmaayo culaysda isku dhin iyo dalkii ugu dabacsan yihiin runtii saaxiibtinimadaas dadka iyo ayaa dhex martay ayaan u malaynayaa inay dabayshaasi dadka cunugna ee dhex mari doonto insha allah qalbiyada dhex mari doonto oo ay noqon doonto meel ammaankeeda lagu soo ay noqon doonto insha allah marka waxaa dalka ka maqnay sida aad noo sheegtay markii ugu dambeysay oo rubac qarni ama 25 sanadood maxaa dhaqan dhaqaale iyo siyaasad iska bedela dalkii oo aad la kulantay runtii aniga markii ugu dambeysay labadii kun dowlad ma jirin oo magaalada aad bay u liidatay ammaankeeda duumurkeeda dhaqaalaheeda laakiin hadda maaragtay waxaad maaragtay moodaa dadka inay u soo jeesteen iyaga oo aan dowladda wax ka sugayn waxbarashadoodii caafimaadkoodii degaankoodii hoteella casriya wax kaloo waxyaabahan aad maaragtay xiise geliya ka mid ah inaan hoteellada ku arko qalooyin gabdho dhar qurux badan wata
si asluub loo shaqaynaya ixtiraamkii ka muuqdo oo aad dareemayso in qaabkan loo soo tarbiyaday ama xagga ay soo cilmi ahaan wax u barteen marka runtii magaalada iyo dadku intuba maaragtay isbedel aad u wanaagsan ayaa kaaga muuqda u mahadsan tahay okay waxaa jirta qurba joog badan oo dalka kusoo laabatay muddooyinkii ugu dambeysana soo laabanaysa kuwaasoo dhinacyada kala duwan ee bulshada haddii ay ahaa lahayd dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiga kala duwan dhinacyada kala duwan kusoo biiray maxaad is leedahay qurba joogta soo guurtay ee dalka kusoo laabatay waa ay soo kordhiyeen أنا واحد طبعا بوجوبته إني سوبريين واحد سوبريين إني ويا أنا سوبريين شقة أولده أول وعندي كانوا هاي سوبريين ويا اختيارنا ضمن فرن ما لو كان عسير فرن وهاي سوبريين مارتي ويا أهلنا نورد أي سوبريين مركا قاعد بان مارتي وسبو أمانة يا مارتي بوجوبته أنت هذا بدل ما شاء الله داركي زمان sidaan u ogsoonahay Somali Voice in Norway xarunteeda koowaad waxay ku taalaa magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway waxay ka howlgashaa guud ahaan gobolada kala duwan ee dalkaasi Norway oo ay ugu adeegto bulshada Soomaaliyeed oo halkaasi ku dhaqan si taalabeedana xarunteena labaad waxay ku taalaa oo aad maanta naga daawanaysaa magaalada Muqdisho ee caasimadda labaad maxaad reer Bergen reer Oslo iyo reer Norway iyo qurba joogta guud ahaanba halkaan tala tusaale iyo soo jeedin baa uga tagi lahayd baan ku faraxsanahay in halkan ka salaamo dowlad iyo shacib dumar iyo rag Soomaali way isku duubanto dan iyo hawl wadaag baa loo daryeelayaa warnayoo gacmaha isbarsanno Soomaali waaye Soomaaliyaan wada nahay waddanka waa wada leenahay kuwii dibadda joogay kuwa gudaha joogaba intuba ubax isku salaamaan aad u mahadsan tahay halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana barnaamijkan idinla socodsiinaya anigu ah Cabdullaahi Nuur Xasan Shiino